waxaa laga badiyey 7 waxa ay dhaliyeen 75 gool waxaa laga dhaliyay 57 waxa u soo hartay 18 kooxda PSK waxay ka mid tahay kooxaha Soomaalida Sweden ee ka dhisan magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden kuwaas oo ka qayb qaata ciyaaraha kubadda cagta ee kooxaha kala duwan ee magaaladu ay ku dheesho xaflad lagu sagootinayay xilli ciyaareedka sanadkan 2019 oo ay kooxdu soo qaban qaabisay ayaa lagu qabtay xarunta ay kooxdu ay ku leedahay xaafadda Bariqoon ee magaalada Göteborg. Jonas Khalif waxa uu ka mid yahay macallimiinta iyo tirarka kooxda PSK waxa uu ka warbixiyay sababihii keentay in kooxda PSK dhidabada loo taago iyo baahiyihii markaasi jiray. waxaan u fircoon waqtiga haayo administrationka hadda Ibrahim la hadalna soo aragtaan waa wax fiican aan dhaanay Ibrahim qalina la bilmi wala hadalnay markaas Ibrahim aan u hordignay wixii aan hor yaalay Ibrahim dalaal shaqeynayo diyaarana isla markii waan u balan qaadnay la shaqeynayno local yar oo aad ayuu cariiri aan ka qaadanay committee hadda ay fadhiso culimada ahlu sunna wal jamaa halkaas aan ku bilaabnay Ibrahim gudoomiye noqday durba waxaan bilaabnay markii inaan meelo badan aan garaacno Ibrahim aad u fircoona oo waxaan fikir fiican ka qabay waxaan bilaabnay markaas inaan meelo badan garaacno yaalba aan ogeyn inaan meeshaas ka baranno in balama aan la yeelno degmada si aan ugu sharaxno wixii kadib waxaan bilaawday wada shaqeyn anaga degmada kooxda PSK oo muddadii ay ka qayb galaysa ciyaaraha kala duwan ay soo hoysay guulo wax ku ool ah ayaa halkaasi waxa lagu guddoonsiiyay bilad sharaf ay ku muteysteen ciyaar wanaag iyo ixtiraamkii ay la yimaadeen ninka kamid ah kooxda PSK marka loo baahdo booskii raba la geeyo markii amaan ee Mustafa naga dhaawacmaan booskaas noo buuxiya marka u baahanahay nooba goolka dhaliyana uu noqdo gool dhaliye markii difaac loo baahay difaac uu ka dheelo oo haddana ka guuray magaaladeena waxaana ku soo dhawo Maxamed Xuseen Cali يوسف سيادين محمد ما شاء الله ninka beelada ugu dambeysay iskale waa saaxiibkiisa Cabdishakuur ama Bishaar qof ayaa u qaadaya waa nin hadda ninku baanfuus ciyaartu sheegay hidaha dhaqanka uu ku jira in bandhiga uu ciyaaraa kubadda cagtana waxa uu ilaaliyaa goosha Mustafa ugu dambeyntiina waxaa goobta khudbado kala duwan oo dhiirigelin ah ka soo jeediyay laacibiin hore iyo waalidiin kuwaas oo siyaabo kala duwan isku dultaagay muhiimadda ciyaaruhu ay u leeyihiin caafimaadka iyo isku xirka bulshada garoonka waxaa ku jiro 12 iyo 11 iyo arbitraha iyo labada dhinacyada taagan hadaa gaarteen yani levelkaas saddexda arbitra ayaga go'aanka iska leh kan noqo iyo jooji iyo ma jirto wax la yiraahdo go'aan ay qaateen hadhowti dacwiye waxba furan laakiin action adduunkan meel uu ka shaqeeyo male waa aragteen inaan maxaa la yiraahdaa ii sheeg ayadoo khalad lagu sameeynayo inay dadkii dhan hore u wada soconayaan marka ku dayasha loo baahan yahay ku dayashadu waxa wanaaga inaa ku dayataan waxa fiican inaa ku dayataan qofkii wax barashada iyo nolosha caadiga ku fiican banoonigana waa ku fiicnaanaya sportiga inayna hilmaamin inaan noolaataan waqti fiican in la seexdo waxay ka mid tahay inaad maxaa la yiraahdaa ii sheeg banoonigii iyo ciyaarihii wixii ay xiiseynaysan ku fiicnaataan cunno fiican oo nadiif ah in la cuno runtiina waa juhdi badan yaan ka dareemay waqti badan oo mataqaanaa la geliyay sideedana haddii qof ama laba qof ama koox aanay waqtigooda hurin aanay dhibtoonin sideedaba guul lama gaadho haddaan nahay
kooxaha magaalada ka dhisan ee Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inaad ku dadaashiin discipline qof Soomaali hadduu qalad galo adigna Soomaaliya taa ugu indhaha lagu heenayaa hadda waa ka warhaysiin oo maleenayaa koox dhanba sanadka dambe Syria laga fariisiyay marka laakiin hasdihina idinka ku jireen iska dheela marka ogaada focus waa saaran yahay ku dadaala sidii akhlaaqdiina ugu dadaal lahaydeen ciyaar fiican ah soo bandhigi lahaydeen waxaa la idbooyaa ninka fadhiyo tarabunka adiga ciyaaraysana maxaa laga rabaa aadaabta adiga waxaa tahay qofka lagu dayanay waxaa matalaysaa sida hore loo sheegay magac dhan role model tahay ambassador tahay wax walba tahay waxa idinkeena caawo oo saan u timaadeen waxaan jeclahay mar kasto wiigi hal mar ina saan isu soo raadsataan oo wada sheekaysataan oo nin kasta gees kale idinka saaxiib isku filan saaxiib kala shisheey idinka isku filan